maxaa sugaysaa markaasaa ka egeynay sidaa quruxda badan buu nooga soo baxay inaba caadi ma ahan koryo saasuu isaga egyahay waa maasha allah jileeca la qabana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarta sharafta leh meel kastoo dunida dacladeeda ka joogtaan waa idin salaamay ugu horreyntii igula saliya xabiibkeena muxamed sala allahu calayhi wasalam cimri dheer iyo cibaado suban iyo caafimaad qab ayaan idin rajaynayaa awalaashin xawataaka janalka daawanaysaana waa samira kuwin janaal maanta waxaan nooga soo tuurayaa keeg yar oo fudud meeshaan waxaan ku haystaa waa ukun iyo caano sokor vanilla baking powder bur mayara alaabto butter hadda ukunta saad u jeedaan baaquli waan ku shubanayaa inta jaalahana weel gaar ah ku shubanayaa inta cadna weel gaar ah ku shubanayaa saasaan u kala qaybinayaa haddii ilaahay idmo waanaad isku darsan kartaa ma ahan wax qasab ama daruuri ah inaad kala reebto laakiin أنا جعل إنه ساس أكلا لبا قيب وقرديو أيضا سيدي هذا هالمول انتا تسكولا درتو تسكولا حربسو أيضا كسمع سان كرتا واحد ضروري ما أهم سيدي هاد بكو فضل بس سمعين كرتا أما سيدي أتجعشاي ومدو اسكوسي وما سميستو سوما وقفولو بسيبو السميستا مركا أنا قسانا السميستا وحن جعلها مركوري انتا عد إنان قراعو أما حربيو kadib marka intaas ay diyaar ii noqoto ka bacdi aan inta jaalaha ku daran jecelahay waad u jeedaan hadda waa soo dhameeyay xabadii u dambeysay baan wadaa halkaasaan cadaankana ku shubanayaa inta jaalahana halkaasaan ku shubanayaa haddana haddii ilaahay idmo mishiintan soo qaadanayaa sokortana waan ku darsanayaa waan xurbinayaa marka sida u jeedaan ba sokor badan qeyri kuma darsanayo sokortan aan haysto waa sokor horta waa budo waxa weeyaan aniga aan guriga ku shiitay laba qaad camal weeye baaquliga yariiska ku jirta xoog marka uma shiidno budo saaid ma aha xeer bay noolnooshahay ayadaasan ku shubanayo sokorta inaan isku badiyo mar rabo adiga haddii aad jeceshahay sokorta waad badsan kartaa laakiin mar walba sokorta caafimaadka uma fiicna waxa fiican in la iska yareeyo hadiiba aan laga maarmeyn hadii laga maarmi karana waxaaba fiican in laga maarmo sababta sokorta ay u fiican tahay ma lawa sun sokorta badan ma fiicno saa u jeedaan baan u shiiday ama u garaacay mishiintan si fiican ugu xurbiyay haddaad mishiintan haysan xurbinka caadiga oo doolshaha loogu talagalay oo weligiis yaliis wax lagu soo xurbisanayay aan weligaan ba isticmaali jirnay baad kaasaad isticmaali kartaa qasab ama daruuri ma ahan in aad mar walba mishiin isticmaasho laakiin haddaad heli karto waa hawl fududays oo inay gacanta ku daasho oo kaaga fudud yahay kaas xoogaa gacmaha ku daalaya saad u garaacayso oo u jeedana qiyaaray cream buu noqday ma ka dhacayo baaquliga saas ugu dhagay ukunteeni hadda waa diyaar marka insha Allah tacaala haddana waxaan guda galeynaa qaybaheeni kale haddii ilaahay idmo inta jaalaha ayaan hadda xurbisanaynaa ayadana ama garaacanaynaa baaquligaas kalaan ku bedeshay baaquligan wuu yar yahay oo iguma garaacmayso marka kaas kalaan ku bedeshay waa isku ayadana si fiican baan isku dhex gelinayaa si ay iigu soo kacdo keegu inuu jileec ii noqdaan rabaa softi ah uusan iga noqon keeg adag oo ujeedaan sidaasay jileec ayadana iigu noqotay sababta ayada wax lagu daray haba yaraatee ma lahan marka aqyaaray haddana haddii ilaahay idmo ayada waa diyaar oo isku darsanaynaa labadeena ukumood intii caddayd iyo intii jaalahayd baan isku darayaa burban sidoo kale haystaa marka hore burkaasaan ku darsanayaa burka kuma wada daraayo tartiib baan ugu soo darayaa baaquli kaloo xagga yaallo iigu jira hal mar haddaa burko dhan hal mar ku hogsiisid adeeg inuu kaa noqdaa dhici karta xoogaa yar markaasaan isku dhex geliyana haddii lahaydna sida jeedaanba
caanihii baan ku darsaday. Caanaha laftooda ma badna, bakeeri aad u yar weeye. saasaan wax yar marka iskugu dhexgelinaya, iskugu walaaqaya. si fiican inaad isku dhexgelisaa fiican si ay ugu noqdaan soft. waa kaasa sidaa ujeedaanba waa jileec biyo biyo ah, weli faanole fari kama qodno weeye, oo wax badan ba usii dhiman. waxaan ku darsanayaa waa baking powderkii, waa qaadada yarta oo kafeega, waa baking powder weeye. intaa yarta oo kalena waa vanilla, ayadana oo vanillada oo ayadana budada ah. tan biyaha oo baalkigaad ku darsan kartaa. burkii baan ku yara kordhistay oo weli wuu iga jilicsan yahay, marka burka intii aan u baahnahay baan ka isticmaalayaa si ay maaragtay aan qiyaas ugu filan u helo hadduu Ilaahay idmo. mar walba waxa fiican inaad soo yaryaraysato si qiyaas kuugu noqdo. haddana ukunta inteeda jaalaha ayaan ku shubayaa, waan ku wada darayaa, markaasna si fiican ayaan isku dhexgelinayaa oo u garaacaya. mar walba mishiintan adeegsanaya, laakiin waxaad adeegsan kartaa birta xurbinka ah oo keega lagu xurbiyaad adeegsan kartaa haddii aadan mishiinka u baahnayn. walaalahayga qaaliga marka waa kasa wax ka maqan ma leh. saasuu diyaar ku yahay keegeeni. waa jileecaas wax yar oo cusbaan ku darsaday aad u yar, qaadada fiideeda. haddana waa diyaar keegeena, waxba kama dhimana. maasha allah. keegan wax dufan iyo wax subaga iyo midna laguma darin, umana baahna in lagu daro. asagaaba sidiisaas wuxuu ku yahay wax walba sidaasoo diyaar ay ugu yihiin, jileec buu noqonayaa. run ahaantii waa rajeynaa inaad ka heli doontaan. aad buuna u fudud yahay, waqti badan xataa ma kaa qaadanayo. 1 2 3 baa la dhahaa. asaga dhan wax yar 10 daqiiqo 12 daqiiqo kaa qaadanayo. hadda birta aan ku gelin lahaa waan soo qabsaday, saliid baan ku shubay, bur yarna intaan kusoo firfirdhiyey ayaan ka daadiyey. waa muhiim inaad birta maaragtay saliid mariso, bur yarna aad ka kor mariso si aysan kaagaga dhigin. saasaan ugu shubanayaa, geesahan kaga wada shubayaan ku wareejinayaa si maaragtay u si siman geesahoo dhan uga noqdo uusan dhinacigaga badan. saasaan ugu wada shubay. wax yar baan jag salka dhulka ugu siinayaa. kadibna waxaan ku darayaa dawa looska cagaarka. looska cagaarka carafna wuu leeyahay, sidiis ahaana loosku vitamin D baa laga helaa, carafna wuu leeyahay oo aad buu caraf badan yahay. waxaan kaloo aan ku darayana waa sabiibka madow, asagana waa ku darayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. marka saan uma deynayo, si fiican baan u samaynayaa hadduu Ilaahay inuu maaragtay gudaha ii galo oo ii dhex galo keegan rabaa. salkan uusan aad igaga tegin ee dhexda uu maaragtay ku dhamaado. sidaasaan rabaa hadduu Ilaahay idmo. korkana uusan ka muuqan. marka waxaan samaynayaa waan dhulkan xawaa ku yara gargaraacaya, wax yar baan dhulka ku garaacaya maadaama dee uu dareerta yahay keegu. markii lagu garaaco dhulka marka guduhu u galaya, waa ujeedaan saasuu gudaha ugu galay oo wada qarsooma. marka hadda saan uu diyaar ku yahay. markii aad garaacdina keeguna wuu kuu silmayaa oo dhinac kaaga ma badanayo. foornadu way ii shidan tahay. akana aqyaaray diyaar weeye hadda keegeeni. maasha allah, sidaa quruxda badan oo labada dhinac bay isaga egyahay ku soo baxay. jileecu qabo ma malayn kartid, runtii aad buu soft u yahay. maasha allah. run ahaantii carafta kasoo kakamaysa gaaja ku qabanaysa. casriyaad ka dhigan kartaa, wax walbaad ka dhigan kartaa, ilmahaad maaragtay caanaha ku siisan kartaa. maasha allah weeye. waxa yar oo ka kor madow waa loos, sorry waa sabiibkii ayaa maaragtay wax yar salka soo gaaray.